markii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya magaalada Bishoftu oo 60 kiiloomitir u jirta caasimadda Itoobiya Addis Ababa ayaa sheegaya inaysan jirin cid ka badbaaday shilkii diyaaradeed ee ka dhacay halkaasi. Gaadiidka gurmadka degdega ayaa goobta la geeyay iyadoo goob joogayaal ay sheegeen inay maqleen qarax aad u weyn meeshan uu ka kacay holac la damin waayay. dadka diyaaradda saarnaa ayaa u kala dhashay 33 jinsiyadood iyadoo hal mid oo kamid ah uu watay baasaboorka Soomaaliya. diyaaradda oo nooceedu ahaa Boeing 737 oo ah nooca rakaabka qaada ayaa burburtay xilli ay u kala gooshaysay magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi. sida ay sheegeen mas'uuliyiinta shirkadda Ethiopian Airlines, diyaaradda waxaa la rumaysan yahay inay saarnaayeen 149 rakaab iyo 8 kamid ah shaqaalaha diyaaradda. afayeen u hadlay diyaaradda ayaa sheegay inay dhinteen dhammaan dadkii la socday diyaaradda wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada Addis Ababa. hadalkii ugu horeeyay ee burburka diyaaradda wuxuu ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isagoo tacsida shilkaasi ku soo qoray bartiisa Twitter-ka. ra'iisul wasaaraha ayaa qoraalkiisa ku sheegay inay uga tacsiinayaan dhammaan dadkii ehelkooda ku waayay shilkaasi diyaaradeed ee u safrayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kuwaas oo ka ambabaxay magaalada Addis Ababa. ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu tacsi la wadaagayo dhammaan qaraabadii dadkooda ku waayay shilkaasi. dadka shilka diyaaradda ku dhintay waxaa kamid ah Cabdishakuur Shahad oo kamid ah howlwadeenada xafiiska wasaaraha Soomaaliya kaas oo la sheegay inuu ka yimid wadanka dibadiisa isla markaana ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. 149 rakaabka iyo 8 shaqaalaha diyaaradda ayaa la xaqiijiyay dhammaan inay geeriyoodeen waxaana shirkadda Gorrow ay daabacday liiska ay ku qornaayeen dadkii shilka ku dhintay. liiska la daabacay shirkadda Ethiopian Airlines ayaa waxa ugu badnaa tirada saarnaa 32 qof oo u dhashay dalka Kenya, 18 qof oo u dhashay Canada, 9 qof oo Ethiopian, 8 Shiinaysa, 8 Talyaani, 8 Amerikaan, 7 u dhashay wadanka Faransiiska, 7 u dhashay dalka Ingiriiska, 6 qof oo u dhashay dalka Masar, 5 qof oo u dhashay Jarmalka, 1 qof oo sitay baasaboorka qaramada midoobay, 1 qof oo watay baasaboorka Hindiya, qof u dhashay wadanka Mozambique iyo qof u dhashay wadanka Norway. dhinaca kale dawladda Kenya ayaa garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ka samaysay xarun gaar ah oo ay ka maamusho xogta ku saabsan shilka diyaaradda Ethiopian Airlines oo saacado ka hor ku burburtay dalka Itoobiya xilli ay ku sii jeeday magaalada Nairobi. wasiirka gaadiidka ee Kenya ayaa sheegay in qaraabada ehelada iyo saaxiibada dadkii saarnaa diyaaradda ay u sameeyeen xarun gaar ah oo qofka uu ku heli karo xogta rasmiga ah ee ku saabsan shilka iyo qofka uu raadinayay. wasiirku wuxuu xaqiijiyay shilka inuu dhacay balse wuxuu ka gaabsaday faahfaahin dheeraad ah balse wuxuu sheegay in heegan la geliyay dhammaan agabka gargaarka caafimaadka si durba loo maamulo haddii dhaawacyo la keeno. dadkii saarnaa diyaaradda Ethiopian oo u kala dhashay 33 jinsiyadood ayaa hadda dhammaantood la xaqiijiyay inay geeriyoodeen. diyaarad isla noocaan oo kale ayaa 5 bilood ka hor ku burburtay meel u dhow biyaha dalka Indonesia waxaana saarnaa 190 qof oo rakaab ah kuwaas oo iyaguna dhammaantood geeriyooday. Yuusuf Cabdishire, wararka telefishinka raadiyaha SBC, Boosaaso.